السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وماشي سكواد الحين. واه جنرالكي مدن حسين كسر دوادا مركا كوبادية مركا لبادية مركا صدحات جنرالكي مدن حسين ماشي نقدر وانا سنة جنرالكي مدن حسين محا عاو إني ودنا كما هلا إنه عاو إني ودنا وهو فرح له للصعد ونكس. ما شاء الله والله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما أنت سيدا الله أركيسين سيدا فيديو كأركيسين bilowgii horeeyay waxaa soo muslimtay boqol qof dad gaaraya oo maxaan ku raadayay hadda gaala maaha waa muslimiin laakiin maanta ayay muslimiin oo bishu 28 ahayd bisha maxaan ku raadaa 28keegi 2021 waa wax lagu farxo waa wax qiimo leh waa wax sharaf leh waa wax aad u wanaagsan ma sha Allah ilaahu muslimiinta soo baday ayaan leenahay markii aan daawanay clipkaas ama videogaas wuxuu na galiyay farxad waan ku faraxnay aad ayuu qalbigayga maxaan ku raaday farxad u galiyay aad ayaan maxaan ku raaday aan ugu dhiiranay hambalyo baan leenahay culimadaas miskiid maxmuudi ee ku yaalay caasimadda Djibouti gaar ahaan Balaas Maxamuud Xarbi oo maanta lagu muslimiyay dad gaaraya 100 qof oo cadaan ah markii hore gaala ahaa laakiin hadda aan gaala ahayn ilaahay muslimiinta habadiyo ayaan leenahay ma sha Allah aad waxaan u amaanaynaa culimada maanta halkaasi ashahaada ugu qabatay ummadaas xagga ilaahay u soo jeestay ee ilaahay uu soo hanuuniyay daawasho wacan barnaamijka barnaamijkani caawa barnaamijyadeennii hore wuu ka duwan yahay aad ayuu uga duwan yahay boqolkiiba boqol wuu ka duwan yahay waa barnaamij inay farxad gelinaya anigana ay farxad geliyay qof kastoo muslimana farxad gelinaya ma sii dheeranayo videoga waayo hambalyo ayaan leenahay ilaahu muslimiinta ummad muslimka ilaahu noo soo baday ayaan leenahay waxaan u malaynayaa inuu ka cajabiyo muuqaalkan maadaama uu tahay qof muslim ah meesha ka daawanaysidna waa janalkii mudane xuseen la soc haddii aan kugu culusahay ood igu cusub tahay subscribe-ka sidaa dhag ku sii like-gana sii raaci dhiirigelin ayay noo tahay commentigana xagga hoose waan ku faraxnaa markaad commenti badan naga bixisaan aad ayaan u faraxnaa commentigana xagga hoose noogu reeb boqolkiiba boqol ayaan ku leenahay intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka sidaas iyo nabadgelyo